بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan joogta oo aniguna ka mid ahay waa idin salaamay. waxaa runtii marka hore idinkaga hambalyeynaya xafladdan ama habmaamuuskan aad u soo agaasinteen sida qiimaha badan iyadoo aanay dawladi idinku saacidin laakiin dhallinyaradu iyadu ay soo agaasimtay xafladdan waxay ka turjumaysaa iyada lafteedu kartida iyo hufnaanta aad leedihiin. waa ku mahadsantihiin. intaas ka sokow wax badan ayaa la soo sheegay dalkeenna inay xorriyaddiisa keeneen dhallinyaro. wax badan ayaa la soo sheegay taariikhdeenna qaybta ugu muhiimsan inay leedahay dhallinyaradu. wax badan ayaa la soo sheegay dhibaata markii ay dhacdo iyo markii loo baahdo in dalkan dhib laga saaraba in la raadiyo dhallinyarada. bil ka hor maantay waxaa magaalada muqdisho ka dhacday waxii aan ugu yeernay 14 Oktoobar oo ahayd musiibo qaran. bil ka hor maantay ayaan mar labaad waxaan aragnay awoodda ay leedahay dhallinyarada Soomaaliyeed. allah u naxariistee dadkii ku geeriyooday qaraxii maalintaas nagu dhacay. ilaahay ha caafiyo kuwii ku dhaawacmay. ilaahay ha u dhib yareeyo kuwa weli ay saamaynaysa dhibaatadoodu oo badankooda aan kulligeen ka mid nahay. laakiin gurmadkii iyo gacantii aad fidiseen dhallinyarada halkan fadhida iyo kuwa idinka maqanba anigoo ku hadlaaya magaca dalkiinna iyo dawladdiinna waa laydinkaga mahad celinaya. marka caawa waxaan isugu nimid bil kadib arrinkan muhiimka ah. waxaan isugu nimid bil kadib maxaa inoo talaa. waxaan isugu nimid bil kadib dhallinyarooy inaan isweydiinno su'aalo muhiima. bil kadib inaan isweydiinno dalkan yaa iska leh. bil kadib inaan isweydiinno dalkan yaa u maqan. bil kadib inaan isweydiinno dalkan yaa u damqanaya. bil kadib inaan isweydiinno dalku yuu sugayaa. bil kadib inaan isweydiinno dalkan isaga ah ayaa nabadayn doona. dhammaan su'aalahaas aan idiin soo sheegay jawaabtooda waxaa ka jawaabi kara keliya dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhidaya kuwii daawanaya. waayo waa inaad ogaataan haddii aadan hore isu ogeysiinina inaad tihiin mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. waa inaad ogaataan inaad tihiin hoggaamiyeyaashii berito. waa inaad ogaatiin inaad tihiin difaacayaashii calanka iyo xornimada. waa inaad ogaataan haddii aan noqonayno ciidan xoog iyo cudud leh cududdii mustaqbalka inay idinka tahay. waa inaad ogaataan mustaqbalkii dalka inuu idinka yahay. waxaan leeyahay marka dhallinyarooy si loo soo celiyo magaceennii sharafteenni iyo karaamadeenni iyo haybaddii ay lahayd ummadda Soomaaliyeed waxaad u baahan tihiin inaad isweydiisaan ma anigaa lay sugayaa mase anigaa cid sugaaya. su-aashaas jawaabteedu waxay tahay cidda aan sugayno haddii aan nahay Soomaali waa dhallinyarada Soomaaliyeed. maantay ma aha maalintii qabiilka.
maanta ma aha maalintii qabyaaladda, maanta ma aha maalintii kala qaybsanaanta, maanta waa maalintii midnimada iyo qarannimada. marka waxaan rabaa wiilkii yaraay dhallinyarada ahay oo halkan ka hadlay hadduu imaqlaayo oo magaciisu ahaa Lafoole oo noo sheegay 96dii inuu baaruud iyo xabado qolofkood ku ciyaari jiray oo aaminsan muqdisho maanta inay ka fiican tahay markuu isagu dhashay oo aaminsan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed maanta inuu haysto fursaddii ugu wanaagsanaa. waxaan u sheegayaa Lafoole in qiyaastiisu ay sax tahay. laakiin Lafoole iyo dhallinyarada halkan fadhida rag iyo dumar, wiil iyo gabar, waxaan weydiinayaa kow, waxaa jira 5 shay ama 5 qof oo su'aalo idiin qabta. 5taasi kuma jiraan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, wasiirka arrimaha dibadda oo halkan fadhiya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda kale oo qaranka. 5taasi waxay yihiin hooyooyinkiinnii idin dhalay oo caloosha idinku qaaday oo idin soo barbaariyey oo xoog idin geliyey oo iyagoo qorraxda iyo dhibaatada jooga intan idin soo gaarsiiyey. weli waxay ka walwalayaan marka aad gurigii ka soo baxdaan inaad nabad qabtaan iyo in kale. weli markay idin soo kariyoen kadib idinkay idin naxaayaan. iyaguna waxay ka walwalayaan mar walba goormaan arki doonnaa waddankeenna oo ah sidii aan rabnay. yaad u malaynaysaan hooyooyinkiinnu inay ka sugayaan inay ka jawaabaan su-aashooda? waxay ka sugayaan idinka. macnaheedu waxay tahay qof walboo idinka mid a hooyadiis meel bay fadhidaa oo waxay rabtaa inaanay wiilkeeda iyo gabadheeda ka welwelin. si aan welwelka uga yarayno shaqadaas idinkaa laydinka rabaa. aabbihii idinka idin soo korsaday waxa uu leeyahay maantay maxaan uga tegayaa dhallinyarada halkan joogta? yaa igala wareegaya dalka? yaan u dhiibaa qorayga aan gacanta ku hayo? cidda loo dhiibi lahaa waa idinka. laakiin si aabbayaashii idinka idin soo korsaday ay dalka aad xaqa u leedihiin idinkugu dhiibaan, idinkaa ka xoog badan, ka caqli badan soo ma aha inaad u istaagtaan oo aad keentaan dalka laydinka rabo. idinkaa laydinka rabaa su-aashaas inaad ka jawaabtaan. dalkani oo ay magaaladan ugu xoogga badan tahay ama ay ugu horrayso waxa uu idin leeyahay aaway dadkaygii. markuu dalkuna weydiiyo aawa dadkaygii ma garan karo jawaab aan ahayn dalka Soomaaliyeedoo waxaan kuu ogahay in dadkaada 75% ay yihiin dhallinyaro yaryar. markuu dalkiinu idin weydiiyo aawa rajadaydii, jawaabtu waxay tahay annagaa rajada ah. haddii su-aashaad aad ka dawaabi weysaan idinkaa ka mas-uula. waxaa idin weydiinayaa su-aal kale. calankiinna, calanku waxa uu leeyahay aaway kuwii isoo xoreeyey, kuwii ay iiga tageen? aaway wiilashii ay dhaleen awowayaashii isoo xoreeyey oo cadowga iga xoreeyey oo igu soo dhintay? aaway ciddii la igaga tegey oo difaaci lahayd oo dhowri lahayd sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed? aaway ciddii garanaysay macno iyaga ka weyn? aaway ciddii garanaysay inay ka fikirto kuwa ka dambeeya inay u samayso nolol ayagu aanay haysan? calanka jawaabtiisu waxa ay tahay calan yahow waxaan kuu haynaa dal 75% ay dhallinyaro tahay.
waxaa idin weydiinayaa dunida oo waxay leedahay Soomaaliya 27 sano kadib weli waxaa ka jira shaki ah ma horey u socotaa mise uma socoto adduunyadana waxaan leenahay duniday waxaad ogaataa waxaan nahay dalka dunida ugu qanisan ma aha inaan leenahay bad dheer ma aha inaan leenahay bad iyo khayraad ma aha inaan leenahay dhul beereed ma aha inaan leenahay wax walba oo dadku ay ku munaafacadsan karaan waxaan leenahay dadka aan leenahayna annagaa ugu taajirsan sababtoo ah 75% waa dhalinyaro dadka Soomaaliyeed su'aal walba oo la isweydiiyo marka macnaheedu waxay tahay rajada keliya ay leedahay ummadda Soomaaliyeed meel walba oo aan ka fiirino waa dhalinyarada Soomaaliyeed su'aashu marka waxay tahay dhalinyaroy ma ka soo baxaysaan mas'uuliyadda dalkiina iyo dadkiina idinku leeyihiin haddii aad ka soo baxaysaan miyaa dhexdhexaad laga noqon karaa qabyaalad iyo qarannimo miyaa dhexdhexaad laga noqon karaa sidii hore iyo sida cusub oo aan rabno miyaa dhexdhexaad laga noqon karaa shabaab iyo nabadgelyo miyaa dhexdhexaad laga noqon karaa taariikhdii hore oo 27 sano aan soo dhaafnay iyo taariikhda cusub oo la foolo halkan nooga sheegayo haddii aadan dhexdhexaad ka noqonaynina qarannimada iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa inaad caddaysaan inaad ku taagan tihiin jidkiin waa inaad ku taagan tihiin jidkeedii waa maxay jidkaas jidka dawladnimada macnaheedu ma aha wasiiro iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne dawladnimadu waa dhalinyaro isabaabushay dawladnimadu waa macallimiin isabaabulay dawladnimadu waa shaqaale isabaabulay dawladnimadu waa gabdho Soomaaliyeed oo isabaabulay waa rag Soomaaliyeed oo isabaabulay waa ganacsato isabaabushay dawladnimadu waa in la qiraa in dalka la wada leeyahay qolada ugu saamiga badan lahaashada dalkana waa qolada ugu badan marka waxaan leenahay haddii aan rabno dalkan inaan hore u marino oo aan gaarsiino meesha uu noo tilmaamayay wiilkii halkan taagnaa oo daadiisu yaray annaga waxaa nagu soo aadaysa xoog ah 25% 75% idinka idinku soo aadaysa ee ma haysaan 75% waxaa muuqatay yididiilo ah inay idinka muuqato inaad nagula xisaabtantaan mustaqbalka dalka maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego go'aan walba oo ay gaaraan dalka dadka madaxda ka ah maantay oo aan anigu ka mid ahay waxay saamayn ku yeelanaysaa noloshiinna mustaqbalkeeda waxay ku yeelanaysaa saamayn mustaqbalka carruurtiinna haddii idinkoo 75% bulshada Soomaaliyeed ka ah aad rabtaan inaad markhaati ka noqotaan sida mustaqbalkiinna uu noqonayo aadna ka aamustaan miyaadan dembiilayaal ahaanaynina haddii aad og tihiin meesha ay shabaabku ku jiraan oo aadan sheegina miyaadan dembiilayaal ahaanaynina haddii aad og tihiin meesha nabadgelyo xumadu ka socoto aadan soo sheegina miyaadan mas-uuliyad xumo qaadaynina haddii aad og tihiin inaad wax qaban kartaan oo aadan qabannina miyaadan mustaqbalka xun qayb ka noqonaynin haddii aad og tihiin inay midnimadu xoog tahay kala qoqobnaantuna ay hoog tahay oo aad doorataan tan dambe miyaadan dembilayaal ahaanaynina haddii aad og tihiin sidii hore uu dalku ahaa in laga bedelo inay sax tahay sidii horena aad ku jirtaan miyaadan mas-uuliyaddeeda lahaynina waxaa laydinka rabaa dhallinyaroy inaad hurdada ka kacdaan waxaa idiin taalla shaqo aada u badan shaqooyinka idin yaalla hortiinna yaalla waxaa ka mid ah waxaa la rabaa inaad dalka Soomaaliya ka shaqaysaan waayo maantay
dalkiina waxaa lagu leeyahay 6 bilyan oo dollar 6 bilyan oo dollar miyaad joogteen meeshii lagu daynsanayay lacagtaas idinkaa laydinka rabaa inaad bixisaan haddii aadan hurdada ka kicinninana 6 bilyan 60 bay gaaraysaa si marka 6 bilyan oo nala ku leeyahay aan isaga bixinno waa inaan ka fogaanaa qabyaaladda oon u soconnaa qarannimada waa inaan ka shaqaynaa laaluushka dalka iyo musuqmaasuqa inaan joojinnaa waa in qofka lagu qiimeeyaa waxa uu garanaayo aan lagu qiimayn qabiilka uu yahay waa in qofka lagu qiimeeyaa waxa uu garanaayo aan lagu qiimayn inuu wiil yahay ama gabar yahay waa inaan la dhihin gabdhaha soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin keliya 30% maya gabdhaha soomaaliyeed waxay xuquuq u leeyihiin intay raggu xuquuq u leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed waa kuwa xafladdan soo agaasimay gabdhaha soomaaliyeed waa kuwii dalkan dhibaatada ka soo saaray waxaa loo baahan yahaa dhallinyaroy marka inaan wax isku ogaanno sida keliya oo dhibaatada looga bixi karo waxay tahay in dhallinyaradu ay mas-uuliyaddeeda qaadato madaxda qarankuna ay mas-uuliyaddeeda qaadato culummadu ay mas-uuliyaddeeda qaadato ganacsatadu ay mas-uuliyaddeeda qaadato dumarka soomaaliyeed iyo gabdhuhu ay mas-uuliyaddooda qaataan laakiin dhallinyarada waxay uga duwan yihiin dadka kale oo dhan hal mid xooggiina waa iyaga maskaxda caafimaadka qabtayna waa iyaga nambarka ugu badan oo bulshada soomaaliyeed ay leedahayna waa iyaga mustaqbalka ummadda soomaaliyeed cidda danta ugu weyn ka leh haddii ay og yihiinna waa iyaga maantay waxaana hor taagan fursad aan dalkan soo marin 30 sanoo lasoo dhaafo maanta waxaa joogta dawlad madaxdeedu ay diyaar u tahay inaad la xisaabtantaan inaan buugaagta idiin furno ood akhrisaan wax walba oo aan ku qornay maantay waxaa midaysan shacabka soomaaliyeed dhammaantiis maantay adduunyadaa u jeedda inaan soo jeesannay laakiin waxaan idiin sheegayaa haddaad rabtaan dalku inuu u kala qaybsanaado in siyaasiyiinah oo 27 sanoo lasoo dhaafay iyaga keliya go'aan ka gaaraya masiirka ummadda soomaaliyeed ama iyagu isku haystay iyo shacabka soomaaliyeed oo markhaati ka ah haddii aad rabtaan waxaan idin leeyahay dhallinyarow u imaada inaad ku qamaartaan mustaqbalkiinna haddii aad rabtaan wixii hore in wax laga beddelo waa inay sabaabushaan waa inaad fadhiga ka kacdaan waxa laga sheekaysta ma ahan farmaajo iyo xasan khayre waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaa laga hadla macno ma samaynayso wasiir hebel muxuu yidhi iyo madaxweyne hebel muxuu yidhi ra-iisul wasaare muxuu yidhi waxa laysku haysto oo laislaawsiinayo waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed haddii wax ay dhacaan oo guruub iyo qayb la idiin isticmaalo oo idinkii dadka hoggaamin lahaa laydinku hoggaamiyo daliiq khalada waxaad ku khamaaraysaan mustaqbalkiina waxaan idin leeyahay marka isu imaatinkan yaanay idinka noqonin 14 oktoobar iyo 14 nofembar dhallinyaradii idinka horraysay ee kontumeeyadii lixdameeyadii joogtay waa idinka xoolo yaraayeen waa idinka xoog yaraayeen maanay haysan waxa aad haysataan laakiin waxay u jeedeen hal mid waxay ogaayeen qarannimadu inay wax walba ka muhiimsan tahay waxay ku fikireen idinka inay idin siiyaan nolol ka fiicantii iyagu ay haysteen idinka marka maxaa rabtiin carruurtiinna inaa uga tagtaan anaa idiin sheegaya sirta nolosha ku bilaaba inaad is-abaabushaan ku bilaaba annaga inaad nala xisaabtantaan waxaan leeyahay kuwa marin habaabiyey dhallinyarada soomaaliyeed oo shabaabka ah annagaa nala ka rabaa oo wada taagan inaan wiil ama gabarh kale
marin habaabin waxaan leeyahay haddii aad rabtaan ciidanka soomaaliyeed inay idin difaacaan xoreeyaan dalkiina ma xorayn karaan haddii aadan idinku gacan taagnaynina garab taagnaynina haddaadan idinku u sheegaynina meesha shabaabka iyo cadowga kale ay joogaan dhallinyaradu waa inay ogaataa haddii idinku aad u nuglaataan qabyaaladda iyo argagixisada in qof walboo kaloo soomaaliyeed ay u nuglaanayso qabyaaladda iyo argagixisada waa ayo cidda la rabo inay calankaa cad qaaddo oo ay dalkan gaarsiiso meeshii la foola uu sheegayey ma anigaa mise waa farmaajo waa idinka laakiin وأنا لما هراني حجر لي dalkiinu wuxuu leeyahay fursad aad u wanaagsan waxaan rabaa maanta inaad iin sheego galabta waxaa jiray shirki golaha wasiirada waxaan soo ansixinnay miisaaniyaddii 2018 may weli ha saabinina waxay ka turjumaysaa wax ka duwan wixii hore waxay ka turjumaysaa inaan kor u dhignay qaybta waxbarashada ee miisaaniyadda 54%. macnaheedu waxay tahay waa markii ugu horreysay haddii ilaahay yidhaahdo 2018 ay dowladda soomaaliyeed dhihi karto waxaan dhisaynaa iskuul lagu dhisaayo lacag laga soo qaaday shacabka soomaaliyeed oo aan la soo tuugsan waxaan kordhinnay hay-adaha afka soomaaliga sidii aan hore u ballan qaaday 100%. waxaan 2018 dhisi doonaa akadeemiyadii af soomaaliga oon kala kaashan doono dowladda jabuuti markii ugu horreysay waxaana ku dhisi doonaa lacag aan ka soo qaadnay shacabka soomaaliyeed waxaan ku darnay bajetka caafimaadka 223. waa markii ugu horreysay oo xukuumad soomaaliyeed ay ka fakirto inay kordhisto waxbarashada caafimaadka iyo af soomaaliga waa markii ugu horreysay oo xukuumad soomaaliyeed ay gudbiso bajet ay ku jirto $3 milyan oo loogu talagalay in lagu dhammaystiro dastuurka qabyada qaranka soomaaliyeed dastuurkii soomaaliyeed ayaan qoraynaa lacagna waan soo tuugsanaynaa ma isqaban karto halkaana waan ka soo gudubnay waa inaan annagu bixinnaa lacagta dastuurka lagu qorayo waxaan u kordhinay kharashka hay-adaha amniga waxaan idiin sheegay in ku dhowaad $6 bilyan lagu leeyahay dowladda soomaaliyeed waxaan idiin sheegayaa laga soo bilaabo janaayo ilaa bishan oo ah nofembar in cid walboo dowladda soomaaliyeed u shaqaysa xukuumaddeeda ay siisa mushaarkeeda waxaan idiin sheegayaa laga soo bilaabo janaayo in qof walba uu ku dhammayn doono sanadkan isagoo qaatay mushaarkiisii janaayo ilaa diseembar waa markii ugu horreysay oo aan ku aragnay akoonnada dowladda waxaan idiin sheegayaa in annagu intaan meesha joognay aan lagu kordhin dowladda deynta lagu leeyahay hal shilin waxaan idiin sheegayaa inaan ku dhammayn doonno bajetka sanadkan oo aan u gudboodno sanadka dambe haddii ila yidhaahdo iyadoo akoonka dowladda ay ku jirta lacag ay leedahay dowladda soomaaliyeed waxaa wax laga qabtay dhaqaalaha iyo waxbarashada waxaa wax laga qabtay
la dagaalanka musuqmaasuqa aad ogtihiin markii ugu horreysay taariikhdeenna in la ansixiyey sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan dhisi doonaa guddi la dagaalamo musuqmaasuqa oo aan ku soo dari doono dhallinyarada si aa u ilaashataan dalkiinna haddii aad eegto meel walba haddii aad eegto bilowga shaqo abuurka aan bilownay bilowga dibudhiska dalka aan bilownay oo aan mar dhow gadaal idinkaga soo sheegi doogno bilowga horumarinta bilowda rajada aan ka leenahay sanad ama 2 sano inaan soo gaarsiino waddankan meel aan ku hamin karno in deynta nala ka daayo bilowga dibudhiska ciidamada bilowga isku habaynta in la tiriyo cid walba u shaqaysa dawladda si waxa la bixinayo ay xaq u yihiin bilowga wax walba oo aasaas loo jeexay bilowga madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wada shaqeeyey 8 bilood ka badan iyadoon maalin la idin sheegin waa isdagaalsan yihiin miyaanay taariikhayn ka duwantii ka horreysay waxa uu leeyahay waddankiinu rajo weyn rajada weyn uu leeyahay waxay tahay in idinku aad soo jeesateen ugu dambayntii waxaan leeyahay 14 Oktoobar maxay adiga kugu reebtay aniga waxay igu reebtay 14 Oktoobar haddii ay jirtay qof aa kala fikir duwaneedeen markii hore waxaan ku leeyahay dhinac u dhigo fikirkaas haddii ay jirtay qolo aad taageersaneed iyo qolo aad ka soo horjeeday meel iska dhig haddii ay jirtay cid aad dagaal ku haysay dhinac u dhigo oo dhallinyaro tahay waxaa noo yaalla hal mid oo keliya waa isu soo laaban doonaaye inaan shaqada aan qabanayno ka dhigno hal mid taasoo ah maadaama ay shabaabku noo sheegeen kulligeen inaan dil ku wada xukumannahay waxaan rabnaa inaan istaagno oo nidhaahdo inta aad dil nagu xukumaysaan oo aad u malaysaan inaan guryaheenna idinku sugayno idinka aqbali mayno waa iska kiin celinaynaa ugu dambayntii wiilasha la marin habaabiyey kuwa madaxda u ah oo isku sheegaya madaxda shabaabka bal iyagu baawuur qaraxa ha soo wataano ama qaraxa isku soo xiraano ma yeelayaan waayo waxay rabaan inay noolaadaan waayo way u baqaayaan naftooda markaasay soo dirayaan wiilashooda kuwaasi annagu waxaan wadaagnaa inaanan waxba wadaagin dhallinyaroy haddii xafladdan aad soo agaasimateen sida aad u soo agaasimateen ay idinka dhab tahay kuwiinna soo agaasimay haddii yididiilada aad dalkiinna u qabtaan ay idinka dhab tahay haddii aad doonaysaan dalkiinna inaad naftiinna iyo dhiiggiinna ku bixisaan waxaan idiin sheegayaa waxaad haysataan ra-iisul wasaare diyaar ah inuu idinla shaqeeyo waana mahadsantiin ra-iisul wasaare waxaa wadanaa requesti waxaa jiro cunug yar oo maalashlaa isagoo qaraxi dhacay wax ku gaareen waa dhibane bliis waxaan kaa codsanaynaa inaad la istaagtid waa mahadsantaa waa ku imaanaynaa